ثم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد وزيرك وزارة الشغالين تأرمها برشدة يقويسك وزير مصطفى أهنا أبتغي وزيرك وزارة عيارها إيه سبورتيغا walaalkay boos wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda adeerkay Saleebaan warsamo guuleed wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha mujaahidada hablaha Yurub Abiib Cabdi agaasimahayga guud ee wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Cabdirashiid Ibraahim Cabdiraxmaan guddida qabanqaabada diyaarinta xilwareejinta hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah dhammaan ururada shaqaalaha rayidka ah dallada guud ee naafada dhammaan haweenweynaha qiimaha iyo qaayaha badan shaqaalahaygii sharafta iyo karaamada lahaa ee wasaaradda hablayeynamaba bahda saxaafadda inankaygii walaalkaygii ugu yaraa wakaaladaydii biyaha ee Burco ahna agaasimaha waaxda cududa shaqaalaha ee wasaaradda cadaaladda Maxamed Kayse dhammaantiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi gudoomiyaha hay-adda maamul wanaagga iyo ka hortagga musuqmaasuqa iyo agaasimaheeda guud dhammaantiinba salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. بعد تحية الإسلام إلهي بمهد ما أنت إسكاله إن قد جد الإسلام سبحانه وتعالى إن قوي كي إيمان صادقة إن قول نجي برن نبضة إن قول كل مية مدشن قيمها بدن ما أنت أنفل كوجو ريتينيو وزير كعصوب وزارة يالن دونته وزير مصطفى هرن وها وزير كعدالة ده وها فرحدي إن ما أنت وريتيه الكم أنيجا أو قرنيا waxa ay iga mudan yihiin bulshadaydu anigoo garanaya waxa ay u baahan yihiin in loo qabto anigoo garanaya waxa ay igaga talagelayaan anigoo ay maanta iga farxad badan tahay maalintii aan xilka la wareegay waayo maalintaa waxay iga ahayd talow maxay noqon doontaa marka joogan xidhan la ii dhiibay laakiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxaan garanayaa waxa aan qabtay iyo waxa u baahan in la qabto iyo waxa aan qaban doono biidnillaahi raxmaan waqtigayga dambe intaas ayaan wada garanayaa waxaana mahad ii abad mahadsantahay shukran waxaana farxad ii inay bulshadaydu maanta haddii aan ku dhex noqday aanay igu noqonaynin meel aan kaga soo baxay qolqa filan ee ay tahay meel aan ka ugu danta yar ka ugu jilicdasan iyo ka ugu wanaagsan intaba ay ahaayeen kuwa aan la midaysnahay oo aan la noolahay dimaashaday qaali aad baad mahadsantahay ay tahay meel aan runtii aanan ku cusbaan doonin oo aanan ahayn qof ka maqnaayo oo la tabayey ee aan ahaa qof la noolaa oo ka mid ahaa intaas waa iga hordhac aad iyo aad baan dhammaantiin idinku mahad celinayaa waxaan gudageli doonaa shalay maalintii aan xilka la wareegay iyo maanta oo aan xilka wareejinayo iyo waxyaabihii ii qabsoomay ilaahay iidankiisa haddii ay tahay dhanka wasaaraddan iyo haddii ay tahay
yihiin inantii u shaqayn jirtay meherada ku taala caasimadda isla markaana social mediaha in badan la dhex wadi jiray isla markiiba wasaaraddu ay si degdega uga jawaabtay xaqeediina uga qaaday meheradii iyadana ay isgarab taagtay runtii waxaa qayb ka ah inay wasaaraddu siiso xuquuqaha u kala qaado shaqaalaha iyo loo shaqeeyaha waxaa ka mid ah inay heshiisiiso sidoo kale inay xeerarka iyo siyaasadaha shaqada khuseeya inay samayso isla markaa waxay steering committeega guddoomiye uga tahay dhammaan shaqaalaha qaranku uu leeyahay oo ay kuwa xukuumaddu hoos timaado intaasi waxaan kaga gudbi karayaa intaanan qoraalkayga akhriskiisa gelin inaan sharxa kooban kaga bixiyo wasaaraddu waxa ay ka qabato arrimaha bulshada iyo qaabka ay u samaysan tahay qodobka labaad waxa weeyaan arrimaha bulshadu aad bay u tiro badan yihiin runtii waxaa arrimaha bulshada ka mida dhammaan dadka inta nugul ayaa ka mid a beelaha la hayso oo ay kow yihiin naafada qaranka jamhuuriyadda somalilan ay ku jirto haweenku ay qayb ka yihiin caruurtu ay qayb ka tahay saboolnimadu ay qayb ka tahay shaqo abuurku uu qayb ka yahay waxyaabahaasoo dhan bulshada ayay uga wakiilta sidoo kale qoyska ayay ka wakiil tahay iyo caruurta iyo haweenka oo ay kow ka yihiin xalinta khilaafaadka qoysaska ay laba ka yihiin daryeelka qoysaska danaynta caruurta haweenka iyo runtii ku dhiirigelinta hanka siyaasadeed sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen waxaan qirayaa in ay xaq tahay ama waajib tahay in ay golayaasha qaranku leeyahay haweenku xubno ka noqdaan hadday tahay kuwa wasiirada hadday tahay golayaasha baarlamaanka iyo ka golaha deegaanka waayo waxa weeyaan qof kastaaba baahidiisa waxaa dareemi karaya qof isaga dhigiisa ah isla markaana garanaya waxa aad u baahan tahay iyo waxa aad qabto waxa aad doonayso in lagu kordhiyo sidaa aawadeed waxaan leeyahay wasaaraddu waa wasaarad aada iyo aada u ballaadhan sidii uu sheegay walaalkay maxamed kayse waxa weeyaan hoos kumbalable waxa ah xasanaadka eebe laga helo qofku inuu bulshadiisa u adeego ajar iyo xasanaad uu la hoydaa waxay ka mid tahay wax ilaahay mooyaane cid bixin karta aanay jirin wasaaraddani waa wasaarad runtii ay isku barbar yaalaan albaabka naarta laga galo iyo ka jannada firdowsa laga galo labaduba qofka dariiqa saxa ah mara wuxuu ka gelayaa si hawl yar albaabka jannada ka dariiqa khaldan maraana wuxuu ku gelayaa dariiqa naarta aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku wareejiyo maanta abtigay wasiir mustafe in badan waxay igu lahaayeen dadku wasaaraddii nin baa loo dhiibay waxaanan ugu jawaabaya nin naxariis badan baa loo dhiibay oo ah abtigay sidaas baan ku faraxsanahay intaasi waa iga hordhac kow ma joogto waayo halkani waa arrimaha bulshaduna wax laga dhammaado maaha insha allahu tacaala waxaan doonayaa inaan halhal isu dul taago maalintii xil wareejintaydii 2017 bisha December 17 oo aan xilka la wareegay falilaahi alxamdu maanta oo aan wareejinayo xilka qaranka oo ay bishu tahay 2021 18 bisha January waxaan la wareegay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo miisaaniyadeedu ay dhan tahay 6 bilyan waa dareemi karaysaan miisaaniyad 6 bilyana iyo 3 wasaaradood oo isa saaran iyo dadka ugu jilicdasan bulshada reer Somaliland meesha ay iska gaari karaan iyo meesha ay iska kabi karaan qof walba bal calculator gareeyo adeegii wasaaradda ee shaqaalaha iyo shidaalka iyo stationaryguna wuu ku jiraa gobolada dalkana 9 bay ka dhisnayd maalinta aan la wareegay qof walba bal xisaabi oo maxaa ku soo baxay taa intaas baan kaga gudbayaa waxaan maanta wareejinayaa anigoo eebe u mahad celinaya subxaanahu wa tacaala iyadoo ay wasaaradda miisaaniyadeedu dhan tahay 15 bilyan oo shilinka Soomaaliland waxaan eebe ugu mahadnaqayaa subxaanahu wa tacaala isagu isbedelka intaa la eg ee uu nasiyay shaqaalaha wasaaradda waxaan la wareegay iyadoo ay dhan yihiin 186 shaqaale ah ayaan la wareegay runtii waxaa ku dhawaad 100 ayaa joogay temporary oo inanka ugu
dheeri uu 11 sannadood temporary ahaa. Sacad ma joogaa? Sacadow hadda halkan isi soo taag. wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. 11 sannadood buu temporary ku joogay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. intaas oo dhanna Sacad wuxuu ahaa mid soo kalaha masaajidka ayuu wuxuu ahaa khadam u adeega oo isagu daryeela. 11 sannadoodna wasaaradda ayuu temporary ku joogay. falilaahi alxamdu. waxaa ka mida guulaha eebba igu alhumeeyey inuu maanta yahay shaqaale dowladeed oo bayroolka dowladda ku jira. Sacad soo saa maaha? aad baad mahadsan tahay. maanta waxaan wareejinayaa waa dareemi karaysaa farqiga u dhexeeya waa 81 shaqaale ah. 81 shaqaalaha waxay sida qiiqa luubaanka dhex socon jireen iyagoo meel laba ku jirin wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. maantana dhammaantood waa shaqaale mushahar qaata oo wasaaradda shaqaalaheeda ka mid a. waxaan dib u habaynta waaxaha waxaan ugu imi iyagoo ah 9 waaxood. 9kaa waaxood ee aan ugu imi dib ayaan isugu habeeyey. maanta waa 10 waaxood oo ay wasaaraddu leedahay iyadoo weliba aan isku celceliyey. waahaha cusub ee aan ku soo kordhiyey waaxda naafada ayaa ka mid a iyo waaxda cilmi baadhista iyo sidoo kale waaxda ICT-da oo dhammaan wasaaraduhu ay ka siman yihiin baahiyo yimi aawadood. caawinta dadka nugul waxaan wasaaradda la wareegay iyada oo gebi ahaanba wasaaraddu aanay caawin qof keliya oo ka mida bulshada ay mas-uulka ka tahay ee loo xil saaray. ma been baan sheegaya shaqaalkago waxa weeye wasaaraddu waxay ahayd meel aan cidna lagu caawin. miisaaniyadda qarankana aan qorshe ugu jirin lagu caawiyo dadka nugul. ilaahay mahadii waxaa ii suura gashay 2018 oo aan xilka markaa ku cusbaa inaan ku guulaysto 100 milyan oo loogu daro caawinta ama taakulada dadka nugul. isla markaana aanu ugu gurmano marba meesha laga soo qayliyo. runtii lacagtaasi marka sanadle loo bedelo waxay caawinaysay 138 qoys halka ay maanta wasaaraddu bishii ka caawiso in ku dhow 1000 qoys halka ay ka caawiso. sanadka oo dhan 138 qoys ayaa noogu jiray. dhanka mashaariicda waxaan la wareegay wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska. iyadoo aanay jirin wax mashaariic ahaba oo wasaaradda u socota oo uu igu wareejiyey wasiirkii aan xilka kala wareegayay. mudane wasiir waxaan kugu wareejinayaa maanta iyadoo ay wasaaradda ka socdaan 4 mashruuc oo waaweyn oo lagu quudiyo dadka u baahan in la daryeelo ee uu qaranku mas-uulka ka yahay. sidoo kale uu socdo oo bilow yahay mashruuc cusub oo aan World Bank iminka kula guda jirno oo ah maxaan sheegay social development. kaasina uu on the process uu yahay 5 mashruuc ayaan insha Allah taala kugu wareejinaya. dhanka adeegyada bulshada waxaan kugu wareejinayaa runtii 41 qof oo shaqaale ah oo u tababaran inay u adeegaan bulshada isla markaana bartay culunta social worker ama adeega bulshada kuwaasoo ah kuwa keena xogta qoys kasta iyo shakhsi kasta oo bulshada reer Soomaaliland ka mid ah ama ha ahaado qof qaxoonti inagula jooga ama ha noqdo qof taraag inagula jooga ama ha noqdo mid muwaadina oo nationality haysta. baahidooda iyo dhibaatadooda kuwa ka soo warrama ayaan kugu wareejinayaa si fududna security wasaaradda u ah oo kula xiriirsiin doona marba meesha u baahan inaad ka gurmato iyo inaad wax ka qabato.
waxaan kugu wareejinayaa guddiyo ka dhisan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka oo 76 kuwaas oo u kuurgala xaafad kasta iyo tacaddi kasta oo dhacay haddii uu yahay mid FGM-ka ka yimi haddii uu yahay carruuraha la tuuray haddii uu yahay carruur aan waalid haysan haddii uu yahay qaar naafa ah dhammaan guddiyadaasi waxay la soo xidhiidhaan oo ay la wadaagaan xogta adeegayaasha bulshada kuwaasoo riboodka wasaaradda kusoo gaarsiinaya hab online ah oo barmeero la yidhaahdo isla markiibana marka la helo qofka xogteedu si toosa xarunta ugu soo dhacayso waxaan uga mahad celinayaa hay-adda UNICEF oo runtii hawshaas aad iyo aad nooga kafaalo qaadatay aad nooga kafaalo qaaday ama nagala shaqaysay ayaan aad ugu mahad celinayaa waaxda shaqo abuurka waxaanu runtii wasaaradda la wareegay iyadoo aanay weli dhicin in wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo inkasta oo magacyada marba xukuumadiba ay sii u dhigtay 3 rukun mar walba ka koobnay aanay weli u samaynin hal qoys oo bulshada reer Somaliland oo mudan in la horumariyo noloshiisa wasaaraddu waxay u samaysay shaqo abuur qoysas dhan 175 qoys oo miisaaniyadda qaranka looga sameeyay shaqo abuurka kuwaas oo dhammaantood in yar mooyaane guulaystay oo noloshoodii ay wax badan ka bedeshay dhanka waxbarashada waxaan la wareegay 2017 iyadoo aanay dhicin wasaaraddu inay qof bulshada reer Somaliland ka mid ah ka caawiso dhanka waxbarashada ama ka taageerto alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada iyo qoysku muddadii aan xilka hayay waxay iyadu iskeeda oo aynu isku tashanayno miisaaniyadayada aanu ka taageernay 20 arday oo jaamacadaha dhamaystay halka 180 arday oo iminka ku jira jaamacadaha kana jooga kana kala yimi gobollada dalka oo dhan ay naga taageertay hay-adda UNICEF iyadoo ay fadhiyaan dhalinyaradii baranaysay cilmiga social worka oo uu diinkoodii aan rajaynayo jaamacadda Hargeysa inuu goobjoog ka yahay wasaaraddu waxay xidhiidh dhow la leedahay jaamacadaha dalka iyadoo ay markaana siiyaan runtii scholarship oo aanu geyno dadka noo soo cawda ay yidhaahdo waxaan kaga soo saaray secondarygii nolol la yaab loo aan la qiimayn karay iminka jaamacaddii buu galay si allaale si aan u galo ma hayo tahriib buu u taagan yahay ayay naga kaalmayn jireen guud ahaan jaamacadaha dalka oo dhan waanu mahad celinayaa si gaara jaamacadda Hargeysa oo wada shaqo dhow leenahay baan ugu mahad celinay dhanka xarumaha wasaaradda waxaan la wareegay wasaaradda iyadoo ay wasaaraddu leedahay 9 xarumood oo ka tirsan jamhuuriyadda Somaliland intii muddadii xilka aan hayay waxaa ii suura galay in aan qabto 2 nooc marka koobaad miisaaniyadda qaranka inaan ka furo 5 xafiis maadaama oo ay wasaaraddu tahay tii bixinaysay adeega bulshada ama loo soo sheegay مباشرة